tacliinta idlaysid maaha inaad abaariyo dhowada ku astaan ummadii dadkiiniyo arliga idi sugaye hadmaad ogsan doontaan dib u eegi doontaan anfaca u taraysaan hadmaad ogsan doontaan dib u eegi doontaan anfaca u taraysaan. Now let's go to the riwaayaddeenii oo magaceedu ahaa yaa u maqan maatadan. He is there for those who are suffering the most back home and around the world. We've seen the presentation from Mulka earlier on about people in Saudi Arabia. We know, and we've heard many Somali people dying in South Africa for different reasons. We know people dying around the world, but to see the change in East Africa and Somalia, you and I and everybody who's here, it's our duty to make it happen. Now, Ya Maqan Maatadan waa riwaayadda aan matali doona caawa. Waxaa ila soo dhawaysiin matalayaasha riwaayadda oo ka mid ah Anti-Tribalism movement ama kacdoonka ka soo horjeedka qabyaaladda. Waxaan jeclahay marka hore inaan u yeero dadka marka nala matalaya riwaayadda. Mar labaad haddaan xasuusiyo riwaayaddu waa Ya Maqan Maatadan. Now let's get the names of the drama play to start with. Abdifitah Faisal Hussein, and he's going to be acting Dalmar. naftu waxay jeceshahay waa joogaaga gacaliso waxay dhibay ga dheeray lama kala harin caawa riwaayadda waxaa sidoo kale matalayaasha riwaayadda caawa ka mid ahaan doona waa Fatima Abdiqani Yusuf oo ku matali doonta Deeqa. I still look good 50 somaha. Wow. aad iyo aad u mahadsan tahay weli waxaan u yeeraynaa magacyada dadka riwaayadda caawa matalaya oo magaceedu yahay yaa u maqan maatadan bal markaana aan soo dhaweyno waa Asad Bashiir Odawa oo ku matali doona Haruun Asad. Why is this far always my mom? lama kala harin waxaan moodaa weli matalayaasha riwaayadda caawa ee yaa u maqan maatadan waxaan soo qabanaynaa Aadam Cabdicasiis Mataan oo ku matali doona Roble. gaaja ay hayso 20 cisho wax ma cunin biyo ma haysan Soomaaliya. weli looma kala harin riwaayadda weli waxaanu ku jirnaa matalayaasha riwaayadda ee ka tirsan kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda bal markaana waxa ila soo dhawaysiin Mulki Maxamed Cabdullaahi oo ku matali doonta Hani. I will always be here for you. looma kala harin waa Maka Maxamuud Muuse oo ku matali doonta Isniino. ninka jooji waasani tuugsi baan dambeynay koobooyinka qaatay safka soo gala looma kala harin waxaan u moodaa magacyada caawa riwaayaddii la magac baxday yaa u maqan maatadan oo aan jecelnahay inta soo socota inaad waqti fiican aad ku qaadatiin waxaa sidoo kale riwaayadda matali doona oo anigoo Maxamed Saciid Axmed oo ku matali doona Dr. Guleed. haddaan in xasuusiyo waa riwaayaddii la magac baxday yaa u maqan maatadan balse waxaan noogu xigi doona aan in xasuusi doona video clip markii riwaayadda noo dhamaato noo soo diray Keenan iyo waliba xagga dhaantada waxaa sidoo kale meesha ka maqneen sanad walba inaan award siino aba abaalmarino dadkaan u aragno inay yihiin dadka sida wacan u taageeray movementiga sanadkan waxaynu jecelnahay 4 qofood oo aynu kala baxnay dadweynaha dhammaan taageera inaynu award siino oo aynu jecelnahay abaalmarin inaynu siino balse abaalmarinta iyo dhaantada iyo waliba video clipka Keenan uu noo soo diray intaynan u tagin waxaan jecelahay riwaayaddeena yaa u maqan maatadan inaan ku furanno heys la yaab leh haddaba heystaas oo la magac baxday Asayda oo noo qaadi doono fanaan ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee caawa halkan nagu soo sharfay waa Xuseen Shire oo soo halkan nala jooga iyo waliba heystii Asayda.